Assalaamu calaykum. Laqabatinka taleefanka phone addiction idmaanul haatif. Qeexitaanka ereygan ayaa ah in qofku la qabatimo ama uu caado ka dhigto inuu xilligiisa oo dhan ku lumiyo isticmaalka taleefanka. Waana wax caadi ah inaad la qabsato taleefankaaga, laakiin natiijada ayaa halaag iyo cawaaqib xumo aad kala kulmi doonto la qabsiga taleefankaasi. Insha Allah mawduuceena waxaan kusoo qaadan doonaa 11 qodob kuwaasoo cadaynaya in qofku balwad ka dhigtay isticmaalka taleefankiisa. Waxaa laga yaabaa in labadeenu aynu ka simannahay qayb ka mid ah astaamahaasi, balse haddii aad 11 qodob isku aragtay, fadlan istaba qabo, waxaad ku sii dhacaysaa hoodaan weyn oo aan ka soo noqosho lahayn. Qodobka koowaad, digniinta kaliya sida dhabta uga naxdo degdegna aad wax uga qabato waa markii ay kugu soo dhacdo fariin ah ama ogeysiis ah battery low, balse haddii aad wax ahmiyad ah siin taleefankaagu marka uu soo gaaro 5% oo aad inta meel iska dhigto hawlahaaga kala qabsato, taas macnaheedu waa inaad ka awood badan tahay taleefankaaga. Booqashada reer ilmo yar u dhashay ama qof xanuunsan ama qof xabsi ku jira ma aha inaad hadiyad u geyso ama wax kale u geyso, waa inaad sawir ka soo qaado oo aad soo bosti garayso. Haddaad wadato Samsung Galaxy ama iPhone, waxa aad u jeceshahay in dadku kugu arkaan, waxaad ku qaadataa gacanta, markaad fadhido miiska ayaad dul saartaa. Haddaad dareento inaanay dadku eegayn, kor baad gacanta ugu qaadqaadaa. taasina waxay calaamad u tahay taleefankaagu ka awood badan yahay, in taleefanka aad wadataa ka awood badan yahay karaamadaadii. waxa ku soo jiitay aad qofka ku raacdo ama ku qiimayso waa nooca moobilka iyo kofarkiisa. markaad hurdada ka kacdo, waxa ugu horeeya aad eegto waa taleefankaaga inta aadan biyo cabin ama cadayan. sidoo kale adigoon wax hawl ah qaban aad taleefankaaga furto, waxaad u sii qaadataa suuliga, marmarka qaarna waad ku dhex isticmaashaa. markii aad meel u baxayso, waxaad 11 jeer hubisaa in jaajarkaagii aad wadatid, sababtoo ah ma doonaysid inuu kaa baktiyo saaxiibkaaga qaaliga ahi. haddii adigoo jiifa fariin qoraaleed qoraya, haddii moobilkaaga wejiga kaaga dhaco kadibna aad cadhooto, marka hore waxaa khalad ah inaad ku isticmaasho taleefankaaga xilliga hurdada. wadnaha ayaa ku boodbooda haddii aad maqasho jug dhulka ka yeertay adigoo u haysta in moobilkaagii dhacay. dadka waxaad ugu jeceshahay qofka ku yiraahdo moobil qaali ah baad wadataa, iyo qofka ku weydiiya moobilkaaga meesha aad ka soo iibsatay iyo waxa kuugu jira. waxa ugu muhiimsan ee aad barkinta u isticmaasho ma aha hurdo kaliya, waa inaad ku qarsato moobilkaaga.